Maanta barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacay dunidana ay ku noolnahay. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena waxaan kaa codsanaynaa subscribe, like iyo share. Dhacdada koowaad, daruuraha muunadaysan ee subaxii ama waqtiyada hore laga arko gacanka Equatorial ee ku yaal waqooyiga Australia. Daruurahani waa daruuro isku cufan, marka hore usoo baxbaxa koox koox, sidoo kale marka dambe isku wada xidhiidhsama. waxaana laga arkaa waqooyiga Equatorial ee ku yaal waddanka Australia. Soo daruurahani waxay jiraan halkii sikinba waxay jiraan 20 mitir. Dhulkan waxay u jiraan ama jooga dhulka waxay ka sarreeyaan 200 mitir. Sidoo kale dhacdada labaad waxa weeye roobka dhiigga ah. Roobkani waa roob midabkiisu uu eeg yahay dhiigga, waxaana la arkaa in badan oo ka mid ah waqtiyada uu roobku da'o ama waqtiyada guga iyo dayrta. Roobkani intiisa badan wuxuu ka da'ay magaalada Kerala ee waddanka Hindiya, wuxuuna roobkani markii ugu horreysay bilaabmay sanadku markuu ahaa 1896 markaasoo uu ka bilaabmay magaalada Kerala ee waddanka Hindiya. Sidoo kale markii ugu dambeysay roobkani la arko ama uu soo da'o wuxuu ahaa bishii June 2012 markaas oo si isku mid ah uga da'ay wadamada Sri Lanka iyo Hindiya. Sidoo kale roobkan mar ay khubaradu baadhay oo intii u dhaxaysay 2012 ilaa 1992 intaa u dhaxaysay oo khubaradu ay baadhaysay, wax jawaab oo ka soo baxay ama wax natiijo oo laga gaadhay ma jirto. Sidoo kale dhacdada saddexaad waxa weeye dooxa dhimashada ee ku yaal California Mareykanka. Dooxani waxaa ka baxa holac aan damin baa ka baxa. Soo dooxan in badan dalxiisayaashu way jecel yihiin inay tagaan oo ay soo arkaan holacaasi ka baxaya ee aan damin. Mar ay khubaradu baadhay waxay ogaatay in dooxaasi uu hoostiisa ku jiro dhagax uranium oo ka samaysan macdano kala duwan, kaas oo inta badan soo saaraya dabkaasi ama holacaasi ka baxaya godka ama dooxada. Dooxani dherer ahaan waxa uu hoos u qodan yahay 20 sentimitir inta dhererkiisa hoostiisa, waxaana ku jirta gaas dabiici ah iyo dhagaxaan dabiici ah oo uranium ka samaysan, kuwaas oo soo saaraya sida fulkaanaha dab soo saaraya ama holac aan damin. Sidoo kale dhacdooyinkan waxaa ka mid ah harada guduudan ee Neutron ku taalla waddanka Mareykanka. Haradan cabirkeedu waxa weeye 52 kilomitir. Sidoo kale waa harada ugu dheer harooyinka ku yaala waddanka Mareykanka. Soo haradan balaceedu waxaa lagu qiyaasaa 22 kilomitir. Saynisyahannadu mar ay baadheen waxay ogaadeen haradan waxaa guduuday ama midabkeeda guduudka ka dhigay inay tahay milixda iyo macdanta oo ku badan, iyo meesha oo ah meel uu ka kacay ama ka qarxay fulkaani. Sidoo kale dhacdooyinkan maanta soo qaadanayna waxaa ka mid ah albaabka naarta waxa loo yaqaano, oo ka mid ah waxyaabaha mucjisooyinka ee dunideena. Sidoo kale albaabka naartu waxa uu ku yaalaa waddanka loo yaqaano Turkmenistan, waana hog ama meel gubanaysa taasoo dabkeedaasi uu baxayay ilaa iyo 1970 sida baadhis ay sameeyeen saynisyahanadu lagu ogaaday. Asal ahaan meeshan waxaa laga soo saari jiray asalkeeda marka loo laabto waxaa laga soo saari jiray baa la yidhi saliidda iyo macdanta kale. Dhacdada ugu dambeysa aan kusoo qaadan doono barnaamijkeena maanta waxa weeye godka weyn ee buluugga ah. Godka weyn ee buluugga ah wuxuu ku dhex yaalaa badda, wuxuuna 70 kilomitir dhinaca badda ka xiga magaalada Bersida ee waddanka Mareykanka. Wuxuuna samaysmay sida ay khubarada iyo cilmi baarayaasha ama saynisyahanadii bartaasi tegay ee baadhay ay sheegeen 1500 sano ka hor, waana muddo aad u fog. Godkaasina waa god aad u ballaaran, cabirkiisuna waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 200 ilaa 300 inta u dhaxaysa oo kilomitir inuu ku yaalo xeebtaasi godka aadka u weyn ee buluugga ah. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena waxaan kaa codsanaynaa inaad like iyo subscribe iyo share